imaanaysa. Halo. Waa kee waay? Ayahay soo daay. Ay. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام. وندو هين. aad baan ugu faraxsanahay mudane inaan kula kulmo. Waxaan soo doontay shaqo. Baraha bulshada ayaa waxaan ku arkay inaad u baahan tihiin shaqaale ka banaan yahay xafiiskiina. Runtii muddo bil ah ayaan ka daba wareegayay. CV-ga waa bil ka hor aan soo gudbiyay. Nasiib daro mar walba aan imaado adigoo maqan ama adigoo mashquul aan imaanayay waan iska noqonayay. Runtii shaqadan waxaa ii hayso baahi badan sababtu waxay tahay waxaan ka dhashay qoys sabool ah oo runtii anigu aan u maqanahay. Sidaas darteeda waxaan runtii jeclaystay in haddii fursadda aan helo shaqadaasi banaan aan buuxiyo. Shahaadooyinkaygana waa kuwan muxuu ahaa CV-gaygana bil ka hor ayaan ku soo gudbiyay mudane. Okay, inta saar. waa tashadeeda. aadaan ugu xumahay inaad muddo ku soo noqnoqoto. haddana bal CV-ga wasaaradda isaga waay. Okay. Ni warta waa mahadsan tahay. Waa naga raali ahaanaysaa horta marka hore. Anigu wax shaqo ah aan hayno ma jirto. Maxaa dhacay laakiin mudane soo adiga ma dhihin xafiiska shaqa ka banaan. Dhageyso. Horta shaqadan aniga leh. Maya waa sax shaqadaada adiga leh. Laakiin adiga soo baraha bulshada kuma soo qorin shaqa ka banaan. Aniguna shahaadooyinkaygu waa ka CV-gaygu waa kuu soo gudbiyay muddo bil aan ku daba orday. Waana kuu sheegay reer oo runtii sabool ah ayaa aniga u maqanahay. Waxaan rabaa in shaqadaada aad isiiso. Adigana baraha bulshada ku soo qortay in aad shaqo. Waxaan doonana waa ku hadli karaa. Baraha bulshada anaga ku soo qornay waa saxan iyo hadalkaaga. Anaga ku soo qornay inaan qof shaqo doonayno boos uu naga banaan yahay. Laakiin waxaas anaga uguma talagalin inaan qof shaqo siino boosna nagama banaano. oo hadda xafiiskaaga wax shaqo ka banaan ma laha. waayahay baraha bulshada maxaa ugu soo qortay in shaqo ay ka banaan tahay. waxaan ugu talagalnay in ganacsigeena iyo company-geena hadahaantiisa uu magaciisi kor u sii kaco. sida adigoo kale aad u timaaday boqolaal kale oo imaadaan oo maalin walba la celiyo. taasna waa ganacsigeena ku dhisan inuu kor u kaco ganacsigeena. laakiin wax shaqo ah anaga aan ku hayno ma leh. halkaan waqtiga uu kaaga lumin runtaan ku sheegaa waayo muddo bil aad soo noqonaysay. adigii boqolaal la mid ah ayaa bilshaas noo soo noqonayay. waxaan ugu talagalnay wax kale maahan in ganacsigeena baraha bulshada uu kor ugu kaco oo macaamiil aan ku helno. laakiin inaan shaqo dhibno ma ahan midda aan u qornay. xafiiskeenana wax shaqo ah kama banaano. marka waad mahadsan tahay waqtigii ka lumin. mudana ma aha haddii aad xafiis adigu leedahay in aad runtii dadka masaakiinta aad soo lugoyso. haddana muddo bil ah ayaa CV-gaygu yaalo maalin walba imaanaya albaabkii laga celinayay. xataa way dhihi weyseen shaqo kuma hayno. ma ahan dadka masaakiinta ah inaad runtii ku tumataan. ma ahan in dadka masaakiinta ah aad ugu faantaan hantida uu ilaahay idin siiyey. sida adinka ilaahay idin siiyey hantida anagana wuu noo siin karaa hantida. marka waxaan kaaga digayaa mudane runtii ani waa kaa tagayaa deeqda ilaaha bixiyo.
laakiin mudan waxaan kaaga digayaa adigoo shaqo ay ku banaaneen haddana inaad soo qorataan baraha bulshada aad soo dhigtaan inaad shaqo runtii u baahantihiin markaa imaadana muddo bilah albaabkii laga celiyo marka ugu dambeeyana ay dhahdo wax shaqo ah kuma hayo boos nooma banaano aadan ugu xumahay arsaaqada ilaaha bixiyo laakiin waxaan ku dhihi lahaa kibirkii mutakarnimada iska haddana isii shahaadooyinkaygu kaa tagayaa taas adigay ku taalaniyo nin walbo maskaxdiisa iyo ganacsigiisa siduu ku socon lahaa ayuu runtii ku shaqaystaa adiguna meel kale aad shaqo ka hesho waad ka raadsan kartaa waad mahadsan tahay shahaadooyinkaagana waa kuwaas